السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Soomaaliya waa Cabdirashiid Cali Sheekh Maxamed wey. Maanta waxaan ka hadlin hal qodob laakiin saddex qodob haddana isku ah. Waa hal qodob laakiin saddex qaybood ayaan u samaystay. Waxaan hadli doonaa 10 daqiiqo maantay ama ka yar. Warka inaan aad u soo gaabiyaan rabaa. Marka saacad baan qabsanayaa, waa fiirsanayaa markay 10 marayso inaan bal joojiyo warka isku dayahayaa. Marka bal aad iila socda. Codkayga haddaad maqlaysaanna ii soo qora, waan ku maqalnaa. bal sabuuradda ku soo feegara sidiinni. Waxaan ka hadlayaa caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud. waxaan kaloo ka hadlahayaa gabadhii dhimatay oo Xaawo Cabdi oo dhakhtarka ahaan jirtay Soomaaliya. waxay u qabatay waa xusaya asagana oo xamar iyo afgooy inta u dhaxaysa ku lahaan jirtay isbitaalka. waxaan kaloo xusahayaa dadka ku tartama diinta islaamka oo Soomaalida ah iyo dadka Soomaalida oo siyaasadda ku tartama siyaasadda iyo dadka samafalida ku tartama sida Xaawo Cabdi oo Soomaalida ah. ayaan shacabka waxaan rabaa maanta inaan u iftiimiyo sidee loo kala saaraa dadkaas Soomaalida tartamaya. sidee loo kala saaraa qofka wanaagga sameynaya oo wanaag ka shaqeynaya iyo kan xumaanta sameynaya, see loo kala saarayo annaga shacabka u kala saarnaa. mowduucu waana intaas, waana 10 daqiiqo haddana. marka waad imaqashaan 3 qof baa hadda ii soo galay. sabuuradii waad soo buuxisaan, ma aqaan 4-5 waad ku jirtaan, laakiin waxa hadda ii soo qoray waan ku maqalnaa 2 qof 3 qof wey. waayahay 2 aayadoo quraan warka waa iska bilaabaya 10 minute markay dhamaatana meesha waan ka tagin. warka inaan joojiyaa raba 10 daqiiqo maanta dhaafiya ma rabo. 2 aayad baa warkeena saldhigu ah. qaala tacaala aayadda koowaad والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ayadaas waxaan kula hadlahayaa dadka wanaagga sameeyey oo in lagu dayda mudan oo Soomaalida ah. aayadda labaadna adinka shacabka baan idin kula hadlayno. qaala tacaala ilaahay wuxuu yiri الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. intaasaan u socdaa. aayadda ma dhammaystirin, laakiin hadafkaygu waa intaas. aayaddana waxay ka hadlaysaa marka qofka muslimka oo mu'minka uu war dhageysto. 2 qof oo hadlaysa, 3 qof oo hadlaysa markaad dhageysato, qofka ugu hadal toosan oo ugu hadal wanaagsan warkiisa inaad raacdo baa laga rabaa. aayadda dambana saasay ka hadlaysaa oo adinka shacabka ayay idinku socotaa. waayahay marka ugu horeysa waa hambalyo aan u dirayo madaxweynaha Soomaaliya oo cusub xasan sheekh maxamuud oo leeyahay caleemasaarkaaga mid adna ku anfaca, Soomaalidana guudaan anfaca, dalkana anfaca, diintana anfaca, mustaqbalka Soomaaliyana meel wanaagsan intaad xilka hayso
mid ka bilowda oo ku dhammaada allaha kaaga dhigo caleemasaarkaaga maanta adiga annagana allaha nooga dhigo haddaan nahay shacabka soomaaliyeed diinta islaamka iyo dalka soomaaliya iyo mustaqbalkana mid wuxuu tara allaha kaa dhigo adiga caleemasaarkaagaba intaasu waa hambalyada xasan sheekh maxamuud oo aan ka rajaynayno meel khayr qaba oo ilaah raalli ka yahay shacabka soomaalina ku faraxsan yihiin inuu dalka ku hogaamin doono waxyaalihii ka dhacay maanta caleemasaarka waxaa ka mid ahaa body languageka sawirku bixinayo macno weyn baa ku jira xasan sheekh maxamuud ismaaciil cumar geelle madaxweynaha jabuuti oo soomaaliga uhura kenyatta oo madaxweynaha kenya garabka isku hayeen hal dhinac bay garabka isaga hayeen dhinaca kale prime ministerka Ethiopia Abiy Ahmed madaxweynaha hore Soomaaliya Maxamed Abdullaahi Farmaajo madaxweynihii xasan ka sii horeeyay Shariif Sheekh Axmed ayaguna saddexdaasna garabka isku hayeen body language-kaas aniga waxaan u fahmay waa sida 3 iyo 3 sida macnaha sheeko wadaag loo yahay oo warka la iskula fahmo ayaan u fahmay adinka shacabkaana qof walba suu u fahmay sawirkaas waa asaga aragtidiisa qodobka labaad waxay ahayd Axmedoobe oo yiri qoladii Soomaalida oo martida loo ahaa dadka kale madaxweynayaasha iyo wadamada kale dadka ay soo dirsadeen oo madaxweyne ka imaan ama baraamsar ha yimaado ama wasiir ha yimaadeen safka hore ha loo baneeyo iyo safka labaad iyo kan saddexaad miyuu yiri Axmedoobena warka waa ku saxna oo adiga hadii marti lagu yahay safka koowaad iyo labaad saddexaad inaad banayso waa sida saxda weey Axmedoobena warka waa ku saxan yahay waana ku ammaanaya ninka saddexaad prime ministerka Soomaaliya ku xigeenka Mahdi Maxamed Gulad Khadar waa ninkan waligay taageeri jiray haddana taageersanahay oo suuratu wal casri ay ku soo qorayaan baraha bulshada dhalinyaro uu khalday markuu akhrinayo taasoo kale waa carabka dafid baa la dhahaa quraanku marka quraanka uu qofku akhrinayo ayada carabku iska dafaya ama ayada kalaad keenaysa ama ayad bad dhaxda ka kala jaraysa ilaa weysa ama mid bad qaldaysa cad u qaldaysa waa kugu adkaanaysa laakiin ninkan carabka boobid bay ahayd ma muusan qaldin mana garan waayo quraanna waxa qalda qofkii akhriya hadaad quraan ba akhrin maxaad qaldaysa hadaad quraan ba aqoon si loo akhriyo maxaad qaldaysa quraanka in la qaldo ceeb maaha laakiin waxa ceeb quraanka inaad akhrin karin waxa ceeb quraan inaad baranin waxa ceeb inaad quraanka inaad barato diyaar u ahayn laakiin qofka soo quraan akhriya waa qaldahaya dibna mala waa lagu noqonaya marka akhrinaysa hadaad fahmi weeyid markaad warka dhamayso kitaabkaaga raaso meeshaad qalday kala soo bax inta caleemasaarka iyo xafladii baan kaga tagay waxaan u noqonayaa shacabka Soomaaliyeed dalkii waa naga burburay 32 sano ka hor tartan baa waxa loogu jira dalkii in dib loo dhiso marka waa la tartamay caqiidiyada diin islaam baa lagu tartamay siyaasad baa lagu tartamay wax qabad iyo samafal baa lagu tartamay hadda 35 bay maraysaa marka adigu 2 daqiiqo ka hor baan ka bilaabaynaa 33 markay ahayd baan ka bilaabaynaa marka 43 markay tahay warka waan joojin insha Allah waxa weeye marka tartankii dadkii tartamay dadna number 1 bay galeen dadna number 2 bay galeen dadna number 3 bay galeen ama dadna 1 bay galeen dadna 2 bay galeen dadna 3 bay galeen annaga shacabka marka waxaan la ka rabaa dadka kii 1 gala inaan dhahno 1 buu galay kii 2 gala 2 buu galay kii 3 gala 3 buu galay macnaheedu waxaan ka wadaa qofkii saxan oo wanaagsan inaan raacno qofkii wax ka qaldan yihiin inaan dhahno waxba ka qaldan si sax ciwaankaygu waxa weeye caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan ka soo horjeediyay gaalkacyo mirow qarxi eraygan waxaan ka keenay nin la yiraahdo Sheekh Maxamed Macalin Abshir oo maanta dhageystay iyo nin aan shalay dhageystay oo ka hadlayay
meel la yiraahdo ceelguula waxaan ku qiyaasayaa meelaan aqaano maaha laakiin waxaan ku qiyaasayaa inay u dhaxaysa gaalkacyo hobyo inta u dhaxaysa meelahaas inay tahay baan u malaynaya wisil iyo camara iyo dhinacyadaas inay tahay adigu ceel buurna aan gaarsiisanayn oo xagga waqooyiga ka xigta dhinaca hobyana aan gaarsiisanayn adigu waa dhinacaas haddaan carabka ku ballaarayo habar giirtu meeshay degto inay tahay baan u malayn nin baa shalay ka hadlay wuxuu dhaliilahayay qoladan la baxday salafiyada asaguna wuxuu ahaa qoladan suufiyada loo yaqaan waa yahay marka waxaan ku cabiraynaa tartanka Soomaaliya diinta islaamka iyo caqiidada u gashay kadib siyaasaddan ku xijin kadibna samafalkii iyo doctor Saxaawo Cabdi Allah u naxariistee ayaan ku gabagabeyn warka shalay markaan dhageysay magaciisii ma haye sheekhaas hadlay aad buu salafiyada iyo waxyaalaha ay gaalkacyo ka wadaan iyo waxyaalaha ay meesha la yiraahdo ceel guula ay ka wadaan ha laga hortaguu yiri aad buu u dhaliilayay maanta waxa uu joogay marka anuu maanta kulay dhageystay kaana shan dhageystay waxa laga yaabaa inay asbuuciyo ka hor iyo maalmo ka hor yihiin laakiin anigu labada warba midna shan dhageystay midna maantay sheekhi shalay warkiisa ma hayo oo ceel guula ka hadlay laakiin sheekha gaalkacyo aan malayn inuu ka hadlay Sheekh Maxamed Macal Abshir baan dhageystay mar dhow oo dheeray caqiidadan markay kugu miisaamaya labada nin markaad dhageysatid eraygaana waxa iska leh mirow gaalkacyo qarri wuxuu yiri Sheekh Maxamed Macal Abshir wuxuu yiri gaalkacyo waxa joogi jiray nin dabcan nin waalan buu ahaa marka dhalinyarada carruurta yarka oo ku ciyaaraysa waxay oran jireen mirow qarxi marka dhagax buu qaadanayaa maqaaxiyaha meelaha dadku ay hor taagan yihiin meeshay ka qabato dhagaxa ku tuuray magaasoo dadkii iyo alaabtii iyo murayd burburinaya marka wuxuu ka wadaa Sheekh Maxamed Macalin Abshir wuxuu ka wadaa wadaadkaas buu u mahmaahaya sheekhaas ka hadlay meesha leeyahdo ceel guula shalay ka hadlay ama maalin hore ka hadlay oo qolo salfiga ku dhagan asaguna suufiga u mahmaahaya marka wuxuu ka wadaa mirow qarxi inagada sheekhaas ceel guul ka hadlayo anaga salfiga nagu soo jeedinaya dadkan gaalkacyo degan hobyo inta u dhaxaysa oo masaajiyada iyo iskuulada iyo waxyaalahaas ayaa waxa ku tartamaya qoladii salfiga ahayd iyo qoladii ahayd suufiyada marka waxa la isku haystaa salafiyo iyo suufiyo ayaa la isku haystaa marka wadaadkan isagu waa salafi oo hadlayo oo Sheekh Maxamed Macal Abshir wuxuu u mahmaahaya ninkii aan shalay dhageystay oo ceel guula ka hadlay wuxuu leeyahay warniyow barnaamijkaadu wada waa kii carruurta oran jirtay ninkii waa la mirow qarxi macnaha dhagax tuur dadka oo muraayadaha iyo dadka daqar marka inagada macnaha warkiisu leeyahay warkaad ku hadashay oo dadka anaga salafi nagu soo jeedinaysid oo masaajid iskuulada hal xir aad leedahay arinta waa qalad buu ka wadaa mahmaahdaas marka Sheekh Maxamed Macal Abshir baan adeegsanayaa Soomaalidii ayaan waxaan rabaa inaan laba qayb u kala saaro qayb wanaag ka shaqeynaysa iyo qayb xumaan ka shaqeynaysa marka qaybta xumaanta ka shaqeynaysa ayaan mahmaahdaas ugu mahmaahayna mirow qarxi waxaan leenahay waxba ha qarxinine qaladaadka iyo dhibaatada joojiya dalka waa burburay in dib loo dhisaan rabaa waxa lagu tartamaya wanaaga marka arinta wixii xumaan wado oo ka shaqeynaya Soomaalidu oo sida mirow qarxi carruurta ay dhaasay ninka waalideen asagoo dhagax tuurayo waxba ha qarxinina waxba xumaan ha sameynina qarxinta iyo xumaanta iyo dilka iyo maxaan ku raahdaa gabdhaha la kufsanayo iyo dariiqa la istaagay dadka la leenayo iyo waxa dhibaato oo xun hal la joojiyo waa sida mahmaada wuxuu u keensaday Sheekh Maxamed Macalin Abshir saasu ka wada anuguna tiibaan raad qaadaya saasan ka wada caqiidaha waxa aniga markaan warka dhageystay salafiye iyo suufiyana waan kala aqaana anigu ilaa 16 sano nimankan suufiga ayaa kitaabada ii bilaabay waan aqaan sheekadoodii dhaqankooda waan garanaya qoladan salafigana ilaa intaan qurbaha imid iyo intaan xamar joogay warkooda waa la socday diinahan iyo caqiidahan waxa u saxan nimankan salafiyada ayaa ka saxnaansho badan haday rabaan qoladan salafiyada sheegata waxa ka khaldanaadeen laakiin waxa salafiye ka khaldan iyo waxa suufiye ka khaldan marka diinta islaamka loo noqdo waxa salafiye ka khaldan ayaa yar waxa suufiye ka khaldan ayaa fara badan
waka marka aniga waxaa ila saxan sheekh maxamed macalin abshir caqiidahan asaga ila saxan shaqooyinka meesha ay ka qabteen anigu gaalkacay inta u dhaxayso hobyo weligii ma arkin laakiin dadka jooga laga rabaa shaqada uu qabtay sheekh maxamed macalin abshir iyo kooxdiisa iyo sheekhan shalay ka hadlay cilguula oo salafiyada dhalilahay oo suufiga magaciisa hadda ana haysan oo xasuusan ana garanay oo ilaaway iyaga iyo kooxda suufiya waxay idin qabteen adinka jooga gaalkacay ila hobyo inta u dhaxaysa ama cilguula iyo degan gaalkacayo adinka dadweynaha ina kala saartaan la idinka rabaa keeba shaqo fiican laakiin aniga hadal ahaan waxa ila fiican suu hadlay sheekh maxamed macalin abshir hadal duux iyo iimaan leh oo dadka wax tarahay ayuu ku hadlay ninkii shalay aan dhageysana hadal dadka iska horkeenahaya oo dadka kala qaybinahaya oo fadqalale iyo mataqaana iska horimaad iyo dagaal iyo mataqaana urgumaar iyo xumaan iyo dadku inay kala cararaan ayuu ninka hadalkiisii ashal dhageystay saasoo aniga ila ahaa sidaasaan u kala saarnay caqiid ahaan iyo diin ahaan labadaas nin saasaan anugu u kala saaray adinkuna saas inaa u kala saartaan baa la rabaa oo kii adiga caqiid ahaan kula saxan adada ninkaasa ila saxan kii shaqo ahaan kula saxan adada ninkaasa shaqo ahaan ila saxan kii hadal ahaan kula saxan adada ninkaasa hadal ahaan ila saxan aniga caqiid ahaan sheekh maxamed macalin abshir baa ila saxan shaqo ahaanna anugu maadaama weligii dhulka arkay dadka joogta baa u daayey ilaa shaqada haddaad indhaha ku aragto yaad sheegi kartaa laakiin sheegashada hadalka sida hadalka u dhigeen nimanku waxa ila hadal fiican oo ila hadal toosan oo ila hadal qurxoon oo hadal dadka isku soo dhaweynaya oo dadka kala kaxaynaya oo dadka isku soo dumahaya oo dadka horumarkooda ka shaqaynaya oo dadka dibdhacooda aan ka shaqaynayn sheekh maxamed macalin abshir ayaa ila hadal toosnaa aniga labada nin markaan midna shal dhageystay oo ninka ceel guula ka hadlay ah oo sheekha oo suufiyada ah iyo ninkan aan dhageysto salafiga maantay sheekh maxamed macalin xasan intaas diintan kaga tagnay siyaasaddan tagaynaa siyaasadda saacadiina waa la gaar aan qabsaday 10 daqiiqo waa adigu 2 daqiiqo kala min 1 daqiiqo aan ku darsan siyaasiyiinta Soomaalida aniga waxa ila saxan oo ku deesha mudan maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo marka laga reebo caleema saarka maantay madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii si labaad ninkaas asaga warqad cad baan ku qorayna waa u banaynayna laakiin inta kale waa ka reebayna xasan sheekh maxamuud maalinku caleema saarka dambe wareejiyo ayaan ku soo jiireen doona ka hadli doona shaqada uu 4 sano dambe qaban doono iyo shaqadii 4 sano oo la soo dhaafay maxamed cabdullaahi farmaajo uu qabtay markaas isbardhig ku sameeyna laakiin hadda waxaan ka saaraynaa madaxweynaha maanta la caleema xasan sheekh maxamuud asaga warqad gaar aan ku qorayna waa sugayna laakiin intii kale oo siyaasiyiin ahaa marka laga reebo xasan sheekh maxamuud waxqabadkiisii 4 sano oo horena aan faraha ka qaadno oo ka horeeyay farmaajo iska dayno oo maanta waxba carab ku dhufanin inta kale waxaa ku deesho mudan xagga siyaasadana ugu saxan maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo madaxweynihii Soomaaliyeed ninka mabdiisa siyaasadeed marka loo barbardhigo siyaasiyiinta Soomaalida ah 5 sano madaxweynaha iyo 6 bilood siyaasadiisa ayaa ka waxtar badan oo ka fiican Soomaalidu meeshay marayso oo 32 sano burbursan waxa ugu siyaasad fiican oo mabdi siyaasadeed ugu fiican yahay 20 markii Djibouti la qabtay tartankii ugu horeysay ee madaxweynaha ugu horeysay oo maxamed cabdulqaadir salaad xasan oo dib loo aas-aasay dawladnimada Soomaaliya burburtay markay 10 sano burbursanayd siyaasiyiinta waxa ugu siyaasad fiicnaa oo ay siyaasiyiinta mirar dhashay 20 ilaa 22 maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waxaa marka siyaasiyiintu ha ku daydeen siyaasadda maxamed cabdullaahi farmaajo shaqadii uu qabtay maxamed cabdullaahi farmaajo 5 sano iyo 6 bilood waxay ka sareysaa oo ka fiican tahay ilaa 2000 ilaa 22 intii Soomaaliya madaxweyne ka soo noqotay iyo siyaasiyiin waxay qabteen 5 sano iyo 6 bilood oo maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ugu saxan oo ugu fiican hadalka marka la yiraahdo hadalka wuxuu raacayaa mabdi iyo shaqadii buu raacayaa mabda siyaasadeed oo maxamed cabdullaahi farmaajo iyo shaqada siyaasadeed oo maxamed cabdullaahi farmaajo hadalkiisuna wuxuu ka marqaati kacayaa inuu number 1 yahay maadaama shaqadiisii iyo mabdiisa siyaasadeed ay number 1 noqdeen intaasna farmaajo iyo siyaasadii ayaa kaga tagnay
diintii islaamka iyo firqooyinka diimahana iyo caqiidadana waxaan kaga tanashay maxamed macalin abshir waxaan tegaynaa dadka samafalayaasha ah dadka Soomaalida oo samafalayaasha ah 32 sano oo dalku burburay waxa ila aniga la muran aan ka dhigay oo ila fiican Dr. Xaawi Cabdi oo dhimatay Allah u naxariistay oo dhakhtar ka sameysay isbitaal inta u dhaxaysa Afgooy Xamar gabadhaas iyo dadkii la shaqeynayay oo ama gabdhaheedii ha noqdeen ama dhakhaatiir kale ha noqdeen waa halka shaqo oo qof Soomaali uu qabto oo number 1 galay shacabka Soomaaliyeed ay ka faa'iideen wax weyn oo qiimo leh u qabtay qofkii marka Soomaalida samafal u sameeynaya oo wuxuu qabanaya oo ama dhakhtarnimo bartay ama engineering bartay ama beero bartay ama lawyernimo bartay ama finance bartay wuxuu rabaa bartay sidaas Dr. Xaawi Cabdi Allah u naxariistay iyo gabdhaheedii ay ugu shaqeyn jireen shacabka Soomaaliyeed ha ugu shaqeeyaan maadaama dalkii burburay oo la rabo in dalkii dib loo soo aaso oo wax kastoo naga burburay oo naga qarimay haday diin tahay haday siyaasad tahay haday wadannimo tahay haday mataqaana akhlaaq tahay haday dhaqaale tahay haday tahay haysiga Soomaalidu ay macnaha isku duubni muujinayaan oo tafraaruq iyo kala taga la iska deenayo oo la isku soo dhawaanayo gacmaha la isqabsanayo oo adduunkii waxa loo kala baxay dawlad hadda muslim iyo gaalo oo iska soo horjeeda oo laba safar ma jirto waxa dawlad la yiraahdo loo kala baxay annaga Soomaali hal dawlad baan nahay inaan marka dawladda Kenya Ethiopia nimanka la yiraahdo magacooda Yemen intaas nagu dhagan oo xuduudna leh inaan la tartanno annagoo shacab Soomaaliyeed oo gacmaha haysta burburkiina aan ka soo kabanno sidaas marka la rabaa in wanaag loogu tartamo looguna kala dheereeyo qof walbana wanaagii uu shacabka u qabtay in aan uga marqaati kacno kuna amaano kuna gab istaagno kuna dhiirigelino haddii lagu dulmaayana waliba aan ku difaacno sida awgeed markaad rabtaan laba qof ama laba kooxood oo isku haysad ana diin ahaan ka saxan ana caqiid ahaan ka saxan shaqada loo qabanayo diin islaam ku saabsan oo shacabka Soomaaliyeed loo qabanayaan ana kaaga fiican oo ka shaqo fiican hadalka dadweynaha loo gudbinayo oo marka diinta laga hadlayo oo caqiida laga hadlayo ama wax qabadka iyo horumarinta diinta islaamka iyo waxbarashada maadiga xataa labadaba la isku dhaxwado dadka la horumarinayo maadaama waxbarashada aad burtay ama diin ha noqoto ama maadi ha noqotee ana ka shaqo fiican hadalka lagu sharaxayo caqiidada iyo shaqadana ana ka hadal fiican tartanka isaga waan loo baahan yahay laakiin shacabka waxa laga rabaa alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana labadii qof marka dhageysatid dadka caqiido fiican waa inaad tiraahdo dadkaas caqiido fiican dadka shaqo fiican waa inaad dadkaas shaqo fiican dadka hadal fiican waa inaad dhahdo dadkaas hadal fiican marka siyada loo leexdo qofkii siyaasiga oo siyaasada kale ka siyaasisan sida Maxamed Abdullaahi Farmaajo kale waa inaad dhahdaa siyaasiyiinta kale waa ka siyaasad fiican yahay shaqada uu qabtay oo siyaasadda uu ka qabtay Soomaaliya waa in la yiraahdo ninkaas siyaasadda Soomaaliya uu ka qabtay asaga siyaasiyiinta kale ka fiican oo shaqada siyaasadeed uu qabtay waxay ka fiican tahay shaqada siyaasadeed oo siyaasiyiinta kale ay qabteen hadalka siyaasigan wuxuu ka fiican yahay siyaasiyiinta kale say u hadlaan waxa ka fiican sida uu hadlayo Farmaajo oo siyaasadda Soomaaliya uga hadlayo oo hadal isku soo dhaweeyay dadka qodbadiisii maanta Farmaajo waad arkayseen oo madaxweynaha ugu hambalyeynaya caalami saarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadal dadka isku dhaweynaya oo jilicsan oo dadka isku soo dhaweynaya oo horumarka Soomaalida iyo Soomaalidu inay adduunka la tartanto hore u socoto dib loo noqonin ayuu ka hadlayay Maxamed Abdullaahi Maxamed Farmaajo sidaas marka waxa la rabaa qofka siyaasiga oo siyaasada ka siyaasad fiican in loo qiro ka shaqo fiican siyaasiyiinta kale in loo qiro ka hadal fiican siyaasiyiinta kale in loo qiro oo imo Dr. Xaawo Dr. badan oo rag iyo dumar ah oo dal iyo dawlad jooga ayay Soomaalidu leedahay qof guntaday oo kabaha gashaday inuu Soomaaliya asagu cilmigiisa iyo xooggiisa ugu shaqeeyo si samafal ah
صدق لبضان سنو أنا وحان كارك الدكتورة حاو عبد الله نحرسته هي قبل هذا وعلينا الله نحرسه جنات فردوس الله قواب المريو وجهيس الله تصو رحمة دي سكر كذا الله كدقو شرف يقيمه أي كل ما طي دكتورة حاو عبد قفتها waxay mudan tahay dhakhaatiirta dadka professionka ah oo aqoonta shakhsiga leh inay dadka Soomaal ugu samafalaan sida Dr. Saxaawi Cabdi ugu samafashay iyo gabdhaheedu iyo wixii raacsana oo la shaqeeyay dhakhaatiiraha aqoontaas maadiga ah oo samafalka ah ayaa in la amaano oo lagu daydo oo la muranka ayaa mudan shaqaday qabatay oo afgooyi inta u dhaxaysay xamar isbaalka ay ka sameysay ceelasha biyaha ayaa mudan iyadu qof hadal badan ma ahayn laakiin inta ay hadashay oo duuban oo anigu qayb kamid aan dhageystay waa mudan tahay hadalkeedaas iyo shaqadeedaas iyo nidi wanaagaas iyo samafalka ay Soomaalida ay u samafashay oo dhakhtarin ugu samafashay in lagu taageero la muran laga dhigo lana amaano loona duceeyo sidaas marka shacabka Soomaaliyeed waxa laga rabaa tartan markii la galo oo shacabka Soomaaliyeed lagu tartamo wanaaga oo ama diin aan ku tartano ama siyaasad aan ku tartano ama samafal aan ku tartano iyo mujtamaca aqoon la'aanta caafimaad la'aanta gaajada fakhriga biyo la'aanta colaada intaas oo dhibaato haysato qof walba kaalintu wanaag ka qabto in laguna amaano loona qiro laguna taageero laguna difaaco waliba sidaas la rabaa shacabka Soomaaliyeed sidaas aan ku dardaarmaya warkii maantay oo ha shacabka Soomaaliyeed tartan baa lagu jiray qofkii wanaaga ku dheereeya in wanaagiisana loo qiro laguna amaano laguna difaaco laguna daydo intaas ayuu ku yahay 10 daqiiqo oo aan qabsadana waan badhaafay oo hadda 20 baan hadlayay laakiin hadda dhankan dhul Samareeb iyo mudugna waan ka imid oo anagu warka subaxdii ilaa galabtii baan hadalnaa marka niman dad 20 daqiiqo ku filan tahay manihin laakiin Soomaaliina aan warka badnay raalli naga ahaada intaan hadlayana maanta aan ugu wargaabnahayba awal 2 saac iyo 1 saac bariyan ka kici jiray laakiin hadda waayahan dambe inaan warka gaagaabiyo 10 iyo 20 iyo 5 iyo 10 ka dhigo ayaan bal isku dayay hadii alla yiraahdo aad iyo aad ba u maasantiin shacabka Soomaaliyeed mar labaad iyo gabagabadana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo cali masaarkiisa waxaan leenahay soo dhow warm welcome madaxweyne afartaadan sano meel khayr Allah kugu hagaajiyo mid khayr Allah noo ka dhigo anaga shacabka Soomaaliyeedna meel khayr leh Allah na gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed aad ba u maasantiin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh